السلام عليكم. علي بن عباس الهساوي دكتوركي مسلم كأها البهنمدي تاريخ ذادنها liiska dhaqaatiirta muslimiinta ugu horeeyay saameyntan ku yeeshay ilbaxnimadii taariikhda aadanaha ayaa weli ah mid dheer. waxaa jira dhaqaatiir badan oo carab iyo muslimiin ah oo gacan weyn ka geystay dhismaha sayniska iyo aasaaska cilmiga caafimaadka. mid ka mid ah magacyada ugu xiisaha labadan isla markaana ugu caansan dhaqaatiirtii hormuudka u ahaa ayaa waxa ah cali bin cabaas al-ahsaawi. cali bin cabaas asal ahaan waa maagi, wuxuuna ku dhashay gobolka la yiraahdo ahfaas ee bariga iiraan ee maantadan. mana jirto cid garanaysa taariikhdiisa dhalasho iyo taariikh waxay inta badan isku khilaafaan go'aanka gaaris taariikhiisa iyo dhimashadiisa, halka taariikhyahanadu qaar ay sheegaan in uu geeriyooday sanadka markuu ahaa 994 halka qorayaasha qaarna ay qoreen in uu dhintay ama uu geeriyooday 1010. ibn cabaas waxaa kaloo loo yaqaanay al-mujaasid sababtoo ah qoyskiisa ka hor diinta islaamka wuxuu bartay cilmiga gacanta ee uu dhigayay abu meher iyo taariikhda carabeed. dhakhtar jamaal ayaana arrinta xaqiijiyay, wuxuuna dhakhtar jamaal sheegay in uu ahaa abu cabaas nin dhaqan wanaagsan isla markaana ah dhakhtar dhammaystiran kaasoo ka soo jeeda reer faris oona loo yaqaano ibnu al-mujiis. ahsaabi wuxuu xiiseynayay bilowgii barashada cilmiga dhirta iyo faa'iidooyinkeeda iyo soo saarista daroogooyinka, wuxuuna bartay buugaag ay qoreen dhaqaatiir carbeed iyo kuwo gariig ah, wuxuuna baranayay dhammaan dhinacyada fikirada caafimaad. kadibna wuxuu ku dabaqay aqoontiisa ku saabsan qaadashada habtijaabka iyo go'aanka gaarista iyo samaynta baaritaano caafimaad oo ku saabsan bukaanada si uu noqdo dhakhtarkii ugu quruxda badan isla markaana takhasus weyn u leh barashada cilmiga daaweynta, isagoo doonayay in uu helo daaweynta cudurrada daawadooda la waayay. al-ahsaawi wuxuu sidoo kale raacay habka cambaaraynta sayniska oo leh caddayn ka timid buugaagtii kuwii ka horreeyey kuwii uu isaga qoray ee ahaa daawooyinka, gaar ahaan kuwii ay qoreen gariigii hore ee ku saabsanaa daaweynta cudurrada. waxaana lagu soo ururiyey qoraaladii xasaasiga ahaa ee buuggii royal kaasi oo qoray oo raahdaan buuggaygu waxaan ku daaweyn doonaa wax kasta oo lagama maarmaan u ah in la ilaaliyo caafimaadka iyo weliba in la daaweeyo cudurrada. ahsaawi wuxuu caddeeyey in sababta loo aas-aasay buuggan ay tahay maqnaanshaha buugaagta daawada faa'iidooyinka buuxda u leh ardayda barata caafimaadka, wuxuuna go'aansaday inuu soo saaro buug uu siga ugu wanqalay in uu yahay maktabadii ka buuxda wax kasta oo loogu baahan yahay barashada cilmiga caafimaadka.